maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 1 bisha Agoosto iyo 2 oo ku beegan beritoole waxaa wadanka Jamhuuriyadda Djibouti gobolada kale dalka ka socda imtixaanka shahaadiga dugsiyada dhexe ee BEFTA waxaana imtixaankaasi si siman u qaadaysa wasaaradda waxbarashada qaranka dalka Djibouti wasiirka waxbarashada iyo tababarka xirfadaha qaranka wadanka Jamhuuriyadda Djibouti Mustafa Maxamed Maxamuud iyo wasiirka maamul goboleedka ee deegaanka Maxamed Xamed Caramis ayaa booqasho ku yimid gobolka Cali Sabiix booqashadoodina ayaa la xiriiray sidii ay ugu kuurgali lahaayeen sida imtixaanka dugsiyada dhexe uga socdo gobolka Cali Sabiix waxaana ku soo dhaweeyay gobolka Cali Sabiix gudoomiyaha gobolka Cali Sabiix Maxamed Waabari Casoowe iyo waxgarad culumaadiin odayaal iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Cali Sabiix waxaa goobta ka hadlay wasiirka waxbarashada iyo tababarka xirfadaha qaranka Mustafa Maxamed Maxamuud oo ka waramay dareenkiisa marka ugu horeysa horta waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sidan balaaran quruxda badan leh ee noo soo dhaweyseen aniga walaalkay wasiirka maxaa marka ugu horeysa waxaan leeyahay maxambaliyo waa mahadsantihiin marka labaad waxa weeyaan alxamdulillah waa run oo mas'uuliyadda jiddan soo socda annaka dusheeda ah مسؤولية واد garanaysaa مسؤولية culus waliba ani gaar ahaan wasiirka tacliinta danahay wasaaradda tacliintu waa wasaarad culus marka insha Allah di waxaan leeyahay biidnillah insha Allah ninkana waxaan naga rajaynaynaa insha Allah inaad noo duceysaan inaad insha Allah arintaasi culus mas'uuliyadda culus inaad nala garab gashaan insha Allah sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Daahir Muuse oo kamid ah odayaal dhaqameedka gobolka Cali Sabiix ku dhaqan waxaan leenahay labada wasiir ee jadiidka ee noo yimiday ee na soo dooqday ee bal dadka loo tago lala hadlo iyaguna iska hadlaan waran soo baran tagna yiri filatisyo hambaliyo soo dhawaado iskooladuna warno way dib badan yahay ee tajirnoogi dikada bilbila iyo shaqaga lagu siiyay waa la garanay tajirnoogi gudidii aan galnay een u fariisanay dibadii shaqada dambe laga intaas kadib ayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada tababarka xirfadaha qaranka Mustafa Maxamed Maxamuud iyo wasiirka maamul goboleedka Maxamed Xamed Caramis iyo gudoomiyaha gobolka Cali Sabiix iyo madax kale oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta dalka waxa ay u koorgaleen qaabka uu socdo imtixaanka shahaadiga dugsiyada dhexe oo lagu dalacayo dugsiyada sare waxaana ay booqasho ku soo mareen goobaha imtixaankaasi uu ka socday محمود عثمان بلحان يونيفرسال تي في علي صبيح.